ku soo dhowow xalqad kale oo xiise leh oo ka mid ah rawaayadeenna ra'diha ee sahanka nolosha. toddobaadkii la soo dhaafay xaalkuma sahlanayn. joofle wuxuu beddelay dhaqankiisa jaadcunka oo wuxuu helay shaqo. muddo intee la'eg ayuu joogi doonaa shaqadaasi cusub. qof kale oo ka tirsan sahanka nolosha ayaa shaqo cusub helay. waa daahir. waxaa lagu soo dhoweeyey burcadbadeed. aan kala soconno sahanka nolosha. subax wanaagsan daahirow. subaxan xaggeed u socotaa? sidii beeralaydii ayaad soo jeeddaa wakhtigaani. maxaa ku soo jeediyey? warhaya dirir saakii waxaan u soo kal lahay salaankan ayaa meel ka soo qaaday. marka waxaan rabaa inaan meel kala geeyaan rabaa. meel baan ka soo qaaday oo meel kalaan geynayaa ah. luuqad aan fahmayo igula hadal saaxiibow. waxaan ka wadaa xaafadda waxaan rabaa inaan u geeyo xaawakiin guri ayay ku hagaajisan rabtaa. way fiican tahay hadda adiga iyo mooga waad heshiiseen soo maaha? maya ani iyo mooga heshiis mini weli raggiis ayaa dooddoonaya. waxaan rabaa inay iga takhallusaan anigaaba dhuudhoomash ku jira saaxib. soo hoosha u fududayn maysid haddii salanka aad geysid gurigiisa? maya saaxib, mooga isma arkeeno. xaawakiin ayaan u sheegay salaanka guriga albaabkiis inaan u dhigi doono oo ayada halkaas ka qaadan doonta. ani mooge meelaan isku arki doono maba jirta. daahirow, su'aalihii aad shalay weydiinaysay jawaab muu heshay? saaxib su'aale he? kuwii ku saabsanaa dee burcadbadeedka. kuwaasaa ka wadda miya? hadda waan iska ilaawa diriro waxaas. qorshahaas hadda maba ku jiraba. oo hadda qorshe kale oo waaliya maysid? haba sheegin dirirow, qalbigayga 100% wuxuu ku qanacsan yahay inaan nolol fiican ka samaysto aniga daaqsan gudaheed. war haddii ayba sidaas tahay way fiican tahaye. haya saaxib, hadhow baan is arkeenaa. isug aan kula qaaday salaanka. maya lama baan has dhibin. 20 jir ayaan ahay, waan qaadi karaa ilaahay xoogii u siiyo. laakiin daahir aan ku caawiyo, waa salaan weyn aan kula qaado. rag waa muruq saaxib, muruqayga fiir markaa salaanka qaaday. haye haddii aad ku adkaysato daahirow, waan sii baxayaa muruqaygana waxaan u kaydsanayaa si aan beertayda ugu fasho. xaaji shaahi aad jeclaad ayaan kuu kariyey maanta. caybla waad mahadsan tahay kowdhe. waxaan rajaynayaa shaah inuu iga kaalmayn doono madax xanuunkii haya maanta. oo muxuu yahay madax xanuunka ku hayaa? daawo ma kuu raadiyaa xaaji? daawo ma raba maanta kowdhe. madaxa wuxuu ila xanuunayaa arrimaha daahir iyo mooge awgood. aad iyo aad baan daahir ugu cabsanaya. weli madax xanuunka haya maanta mid caadiya ma aha. xaajiyow isdeji. moogi uma xuma sida aad u malaynaysaane. waxaad sidaas u dhahaysaa? ma ogid waxa dhacaya. war jiraaba waxaa layidhi cakaara ayuu iman isugu soo biyo shuban. xaajiyow horta mooga waa wiilkii aad sodoga u ahayd. waa aabbaha wiilka suhayb ah. waa gartay. ee aad awowga u tahay. waa gartay. ee ha ku biirin kooxdan duminaysaa reerka. runta horta mardhow ayay soo shaacbixi doontaa kowdhe. haye ma foga xilligay runta soo shaacbixi doonto, laakiin waanu sugaynaa. xaajiyow horta waa nasiib darro in burcadbadeedka dirir ah yaa xaawakiin iyo daahir inuu duufsado. aad baan uga xuma oo uu mooga ka dhigo inuu nin xun yahay. caybale maxaad indhaha isu tiraysaa? waad aragtaa sida wiilkaaga loo garaacay. miyaysan taasi caddayn buuxda ahayn oo caddayn kugu filayn? xaajiyow daaqsan waxaa ku nool dad aad u badan. waxaana laga yaabaa daahir inuu cadow kala yeeshay. waa gartay. heestiisa darteedana dadkii oo dhan ku colaadinayaan. ha eedaynin ehelka dhow ee mooga ah. waxaan rabaa horta marka ugu horraysa inaan mooga arko si aan arrimahan u xallinno. ma daawan karo anigu arrintan oo kale. daahir oo baxsada ma daawan karo. marka waa in arrinkaas xal u hela anigu maanta. waan ku raacayaa xaaji sababtoo ah anigu unbaa ah qofka keliya ee aan dhanna la jirin. sunta dirir way xooggan tahay xaaji. aniga ayaa ah qofka keli ah ee xasuusan in mooga qooskan ka tirsan yahay. aan u nahay sodoga iyo sodohda. xaaji see kaa noqota? inaad iraaci dhib kuma qaba anigu. waad iraaci kartaa ee soo baxayna keen. xaawakiin maxaad sidaa iigu soo eegaysaa? indhaha ayaad igu soo taagaysaa. sideen kuu soo eegayaa moogey? indhaha ayaad igu soo eegaysaa. ma waxbaad rabtaa inaad ii sheegtid? maya waxaa laga rabaa in aad ninkaaga cil naxariisla ku fiirisid oo aad sidan u egin. ma waxaad rabtaa inaad gurigayga cayso?
rabbiyow noo naxariiso oo dulqaadka noo badi. yaa loo naxariisan haddii aad waalidoo walaalka aaminsan tahay oodaad ninkaaga aaminayn waa kuu sharaf darro. wax inaan ogaado ayaan rabaa mooge. maxaad ka shaqaysaa? bal ii sheeg. su'aala aynka ah ayaad ii weydiinaysaa. inaan iska ogaado baan rabaa. ma waxaad cuntaad iga weyday? maxaa kaa galay shaqadayda? ma ii sheegaysaa mise? naama walaalka ayaad la hadashay ma halkanuu yimid muxuu iga kaa sheegay? waxba ma uusan ii sheegin walaalkay. adiga keliya ayaan jeclaha inaan warkaaga dhegaysto. dadka kale warkooda maba raba inaan maqlo. war iidaa gacanta waad i xanuujisaye. awe daahir muxuu kuu sheegay? gacantayda ii dhaaf. siidaa gabadha gacanteeda mooga siidaa. sheekh rooble faraha ka qaad gabadha siidaa gabadha horta siidaa. joofle malaha dhabkaa ma aha shaqo uma kacaysid. joofle maanta waa maalintii isbuuca ugu dambaysay oo haddii aadan shaqo tegin lacag soo heli maysid ee kac toos jooflow. maanta waa daalanahay oo shaqo uma socdo. yaa shaqo ayaan ka daalay miyaad ka daashaa cunista cuntada waryaa? su-aashaas aniga ayaa lagaa rabay inaan ku weydiiyo. adiga iyo carruurtaada waan shaqayaa idinkun lacagteeda oo dhan ayaad cuntaan. ma xisaabisay lacagta aad jaad ku qarash garaysid? jaad se ah jaadba maanaa cuna. waxaan cunaa jaad raqiisa maxaa yeelay adiga iyo carruurtaada ayaa lacagteeda oo dhan isticmaala. waan u jeedaa inaan shaqeeyaba looma baahnaba. beerta tirar ayaan ku tacabeelay oo waa ku daalay oo waa ku rafaaday igamana muuqato. joofle si fiican ayaan kuu maqlaa. orod oo shaqo tag. markaad shaqaysatid ood lacagta soo qaadatid jaad nuugu soo gad. aniga iyo adiga iyo carruurtaba aan casho ka wada dhiganay. orod bax. moogay dhegayso. dagaal laguma xalliyo arrimaha qoyska ee gudaha ee ka dhexeeya nin iyo afadiisa ama nin iyo xaaskiisa. sheekh wax rabshad ah ma wadin laakiin waxa waagtay wax rabshadana ma wadin. waan ogahay sababtoo ah gacanta xawakiin ayaan hayay laakiin dee waxaan gacanta u hayay oo keliya in aan cabiro. waxaan rabay in aan u soo gado dhar iyada leeg. sidaas miyayn ahayn horta xawakiin? anigu farxad ayay ahaan lahayd in dadkoo dhanba ay nabad ku wada noolaadaan iyo deganaansho iyo ismaqal iyo kala dambayn. waxaan ahay nin nabad jecel aabbe mar kastana waxaan u halgamaa nabadda. in xaaska la garaaco waa dhaqan diinteenna lid ku ah. xaasku waxay mudan tahay in la xidhiiriyo oo la jeclaado oo la soo dhoweeyo oo aan la garaacin oo la ammaan geliyo. aniguba saas waan qabaa. xawakiinay xaaskaygii qaaliga ahayday fadlan bal soo baxoo martida shaaha u keen. sheekh maama cabla gurigiinnii weeye aragtidiinna waan ku faraxsanahay. seetiin soo fadhiista soo gala. waan fiicannahay moog annagu muddo dheerna ma sii joogayno oo mar dhow waan baxaynaa. way fiican tahay inaad soo booqataan aabbe. seetiin hooyo soo dhowaada. oo carruurtii aaway? waxay booqasho ugu tageen eeddadood guriga eeddadood bay aadeen. waa yahay waa khayr. mooga waxaan halkaan u nimid annagu inaan wax ka ogaado dhibka adiga iyo daahir idinka dhexeeya. daahir dhib nagama dhexeeyo mana garanaya waxa aan ku sameeyey uu igu xanaaqsan yahay. anigu waxaan helay dukumentiyo caddaynaya inaad adigu lacag xaaraana qaadatid. dukumentiyo noocee ah aabbo? dukumentiyaasha way jiraan kowdha odayaasha ayaana haya si ay u xifdiyaan. ilaa iyo hadda ma aqaan dukumentiyada aad ka hadlaysid laakiin haddii ay yihiin dukumentiyadaydii oo uu daahir kuu dhiibay waxaan odhan karaa daahir waa tuug. maxaa yeelay gurigayga inta u yimid ayuu xaday dukumentiyadii. marka sheekhow ma tuug ayaad aaminaysaa? dhegayse mooge dukumentiyada waxaa ku dhigan caddaymo kugu saabsan adiga mooga ah. marka su'aasha aan raba inaan jawaab u helo waxay tahay sideed ku heshay lacagta badan ee aad haysato moogow? waa sharaf darro in tuug shaqola'aan ah uu dadka reer daaqsan iska hor keeno qof daacad ah sida aniga oo kale. sheekh ma fiicna inaad arrinta ka eegtid dhinaca daahir wiilkaaga laakiinse waxaa quman inaad ka fiirisid dhinaca anshaxa. ma aragtaa sheekhow? yaa waan kuu sheegay in mooga yahay nin aad u fiican. annagana hadda waxaan haysannaa wiil fiican oo baarri ah oo xidid noo ah. hadda anigu waa inaan baxaa kowdheh. waa wada xidhiiri doonaa mooga hadduu allah awoodda la ogolaado insha allahu tacaala. marka hadda waan sii baxaynaa howlo badan ayaa iga kala daadsan. nabaday mooge sii sagooti sheekha aan xaawakiin la sii hadlee.
aabbe aan ku sii dhoweeyo shaqo ayaan aadayaa oon u sii socdaaya ina soo bixi aabbe naya xaawakiin maxaa kaa khaldan hooye macaan kuma aana fahminay warka ii jilci oo ma waxaad rabtaa inaad guurkaaga ku ciyaartid haddii mooga kaa tago maanta yaa maxaa dhici doona yaa bixin doona waxbarashada carruurtaada iyo nolosha heerka sare ee aad ku nooshihiin hadda hooyo carruurtayda waxba ka hallaabi maayaan arsaaqdana alla ayaa bixiya hooye macaan oo ma burcadbadeedkii dirir ahaa ayaa maskaxda kaaga dheelay ma wuxuu kuu sheegay beenta ah in adiga iyo carruurtaba idin damaanad qaadi doono marka beertiisa dacarta a soo go'do dirir arrimahan ha soo gelin hooye macaan maya arrintan dirir lug ayuu ku leeyahay oo kama bixin karo sidii uu uga soo laabtay xabsigana wuxuu kaa jeediyey ninkaagii fiicnaa ee mooga ahaa mooga waa nin aad u fiican hooyo aniga ayuu i qabaa mooge oo go'aan ka gaari kara in uu yahay nin fiican iyo in kale naabaqalnimada iska dhaaf xaawakiinay reerkaaga ayaad burburin doontaa waalidan iska dhaaf oo reerkaaga ka feker warkayga intaasuu ku filan yahay nabadgelya xaawakiin waan soo socdaa dirir maxaad halkan ka qabanaysaa waan ka xumahay inaan soo garaaco albaabka waan iska fiiriyey oo gaarigii mooge bannaanka ma oolin waan ogaa inaan dhib ka imaanaynin haddaan albaabka soo garaaco soo ma fiicni dirirow maxaa jira waan fiicanahay daahir ma kula joogaa horta daahir iyo halkan daahir ma imaan karo oo mooge ayuu ka baqayaa inuu u dhammeeyo sallaan ma kuu keenay maanta daahir sallaan muxuu sallaanka ku qaban lahaa daahir alle rabbiyow shakigaygii dhab waaye oo shakigee maxaa jira dirirow waxba inaan ku qalqaliyo ma rabo inaysan waxba jirin ayaa laga yaabaa dirirow hadda ayaan baqalqalsanahay ee waxa jira ii sheeg waayahay maanta gelinkii hore ayaan arkay daahir oo sallaan wada oo muxuu sallaanka u watay aniga xitaa ma garan karo waan weyddiiyey oo wuxuu ii sheegay inuu adiga ku waday maya anigu sallaan ma weyddiisan halkaanna ma uusan keeninba hadda ayaan gartay anigu weli ma aanan fahmin dirirow ee maxaa ka jira sallaanka aad ka hadlayso aan raadiyo si aan ula hadlo waxaa laga yaabaa in si qaldan aan anigu wax u fahmay wax ii sheeg dirirow waxa aad qarinayso anigu ma aanan fahmin haddii walaalkay dhib ku jiro waa inaan ogaada isla hadda waayahay hal shay oo aan ka soo bartay burcadbadeedda waxaa waaye in sallaanka loo adeegsado burcadbadeednimada si loogu fuulo maraakiibta la afduubo alla rabbiyow oo ma waxaad u malaynaysaa in daahir burcadbadeednimo aaday ma garanayo wallaahi su'aalo aan ka shaki ayuu weyddiiyey maalin dhoweyd oo aan diiday inaan uga jawaabo su'aalo shaki leh oo maxaa ka mid ahaa sida meeqa lacag ayay burcadbadeeddu helaan iyo wax lamid a allah bal aan waco walaalkay maba garanayo wuxuu ugu dan leeyahay teleefoonkiisa waan wacay mana qabanayo waxaan filayaa inaynan daahin waan ku baryaa dirirow gurigiisa ma aadi kartaa oo ma ka soo fiirin kartaa walaalow qorshahaygaaba sidaas ahaa laakiin fadlan ha isku dhex yaacin oo dadkoo dhan ha u wada sheegin xataa sheekha wallee ma aqaano waxa aan sameeyo in qof burcadbadeednimo lagu shambadeeyo ma rabo dadku si xun ayay ii xugmiyeen sababtoo ah hal qalad ayaan galay sanado badan ayay qaadan doontaa in dadku ay dib iigu kalsoonaadaan ma rabo intaasi daahir ay ku dhacdo ma garatay xaawakiinay waayaha qofna u sheegi maayo waa nasiib darro in daahir qaladkaygii wax ka baran waaye oo uu rabo inuu arrintan isku dayo aan soo raadiyo ninkaas dhaqso walaalow inta aynaan daahin carruurey waxaan rabaa inaan aabbihiin nolosha cidhiiri uga dhigno ilaa uu ka shaqo tegayo diyaar ma u tihiin hooyo haa markaan 1 2 3 tiriyo bilaaba qaylo iyo hees oo ku dhawaaqa ilaa inta uu ka toosayo diyaar ma tihiin haa 1 2 3 waryaa carruurey joojiye qaylada oo qaylada iga dhaaf waan seexanayahay shaqa tag waryaa oo ka
waan dhaartay qof ayaan garaaci doonaa maanta dhaaf carruurta waryaa dhaaf carruurta haddaad carruurta eegtid aniga ay doonaysaa jooflow anigaad rabtaa waayahay maanta waad iga guulaysateen oo shaqo ayaan aadayaa laakiin marka xiga dhagaha ayaan furaysan doonaa oo si fiican ayaan u seexan doonaa taasina waa ballan shaqo wacan ayaad qabateen oo aabbihiin ayaad ila kiciseen si uu shaqo u aado sax hooya waad fiicantihiin ilmo wanaagsan baad tihiin war isuga assalaamu calaykum wacalaykum asalaam akhyaaray asxaan ii sameeya war maxaad rabtaa waan ogahay inaad kalluumaysato tihiin oo aad shabaqyadiina soo fiirin rabtaan lifti ma ii siin kartaan oo maxaad ka raadinaysaa biyaha qof ayaan goobayaa war waxaad ahayd waan la soconnaa wiilyahow waan ognahay inaad burcadbadeed tahay oo saaxiibow fadlan taasi wax hore ayay ahayd qaladkaygii hore 10 ayaan ka bartay oo kaalay adiga biyaha maxaa kaa soo galay waad ka raadinaysaa waxaan rabaa inaan qof ka badbaadiyo qaladkii aan hor u galay waan idin baryayaa maasha allah war sheekh ayaa noo kaa sheegay inaad beeraley noqotay haa waa nahay beeraley haye soo ful doonta codka kalsoonida ayaan kugu siinayaa sheekha dartiisee haddii haniyad jebinin sheekha waad mahadsan tihiin waayahay waad xooggan tahay iyo halkan ka qaba doonta shaqadaada kuma faraxsani wiilkaa daahirha weli magacayga ayuu dhulka ku jiidayaa mudane waan goobnay dukumentiyadaas waana aan weynay runtii dhegayso sheekhu waxa uu leeyahay dukumentiyadii waxaa haya odayaasha daaqsan ma ka soo qaadi kartaan dadnimadeeda ma leedihiin inaad dukumentiyadaas soo qaadaani waa lagama maarmaan oo mudan ayaan ka soo qaadnaa dukumentiyadaas ma odayaasha anugu sidaas ayaan idin leeyahay waxba igama gelin sidaad u soo qaadaysaan meesha aad ka doonaysaan aniga waxaa iidana dukumentiyada oo gacantayda aad ku soo sintaan may maqashaa mudane laakiin waan ogahay run ahaantii inaan anigu lacag aad u rabo laakiin habaar anigu ma doonayo mana rabo in nasiixxumuhu igu dhacdo oo aan weeraro odayaasha daaqsan haddii aad shaqadiinna qabsan lahaydeen sidii loogu tala galay mar horeba arrinta kamaynaan wada hadalneen waxaa laydinka rabay mar hore dukumentiyada inaad ii soo qaadaan odayaasha ma taabanayna sooma cunugii aaway waan soo heli karaa cunugga ma waxaad rabtaa inaan raadinna mar labaad waxaan rabaa inaad u dhammaysaan haye bes waaye dila oo meydkiisa badda ku tuura ma yaqaana cidda uu afaarahooda soo galay libaax badeedku ha cuno ma fahamteen haa mudane si wacan war heedhe ma aragtaa doontii uu saaxiibkaa saarnaa maya uma jeedo maya ma saaraan karo waa markab caalami ah oo goobta iska maraya haa walle ma sidaasaa niyo waa inaan ka fogaannaa intayna burcadbadeed inoo marayn warniyow way ka yar tahay doomaha ay burcadbadeed ku bartilmaameysadaan taas haa waa doon ganacsato waa ganacsato yaryar oo dulaalnimo ku xamaasha yaa ma waxay isuga gooshaan dalalka iyagoo dulaaliin ah haa taasi waa xaqiiq allah way noo soo dhowaadeen asalaamu calaykum wacalaykum asalaam nabad ayaan wadnaa waxaan jeclaan lahayn inaan kalluun cunno maanta kalluun iiba ma haysaan dabcan waan idiin haynaa malay dirir doonta dhinacooda u dirindiri haya kaalaya kalluunkii ayaan idiin keennay mahadsanidin haye meeqa kalluun ayaad rabtaan 5 xajmiga dhexe ah iga raali noqo mudane waxaan maqlay inaad dulaaliin tihiine haa waan nahay ma waxaad gadaysaan baa jira haa dacar ma xiisaysaan inaad gadatid dacarta cajiib ma ogayn in daaqsan dacar ay beertaan waan ka duwanahay aniga aan ku siiyo kaarkayga iimayl waad ii soo diri kartaa si aan u wada xidhiirno 3 ilaa 4 jeer ayaan sannadkii soo maraa halkan waxaan qorshayn karnaa inaan kulan yeelanno aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay mudane waa kan kalluunkaagii hoo qabso mahadsanid waa tan lacagtaadii baaqigana waad la hari kartaa waad mahadsan tahay mudane khayr allaha ku siiyo waaw dirirow walle falxad ayaad kalluunkii qiimo aan caadi ahayn ayaan ku gadnay maanta hadda dib ayaan u noqonaynaa oo maskaxda ayaan dejinaynaa insha allah laakiin waxaan ka xumahay ma aad helin saaxiibka aad goobaysa waa caadi meel kale ayaan ka raadin dhib ma laha
daahir ma joogtaa waa anige war dirirow halkan maxaan ku keenay aagga ayaan joogay oo waxaan iska go'aansaday inaan ku soo eego uun daahirow waad maasantahay saaxiib waa iska caadi laakiin hadda meel ayaan u degdegsanahay waan sii bixi rabaa war xaggeed u socotaa saaxiibow aniyow kor un waad ogtahay nolosha fanaaniinta yacni aad mashquul badan nolosha fanaanka mise tan burcadbadeedka saaxiibow maxaad i tiri waan ogahay inaad imaqashay daahir maxaad ku samaynaysaa salaanka aan jaranjarta hoose ku soo arkay waryaa haa xaawakiin ayaan u geeyey iyana mid kale ayay heshay marka aan waa ka soo celiyey ma fahanta xaawakiin salaan kuma weydiisan war kaalay ma adigu dirirow ma afhayeenkeed ayaa tahay waan kuu sheegay iyada ayaa i weydiisatay cabbaar ka hor ayaan la hadlay xaawakiin waxayna ii sheegtay inaysan wax ku weydiisan daahir ma anigaad basaasaysaa hadda oo aad basaasaysaa dhaqdhaqaaq kasto aniga aan sameeyo mooge miyaa lacag ku soo siiyey inaad aniga yani ibaarto o basaasto waryaa fiiri hadallada macnadarrada iga dhaaf yaa maxaad afaarahaygii iyo nolosheedii iyo waxaan ku sugnaay maxaad u daba socotaa waan walaacsanahay daahirow oo adiga ayaan kaa welwelsanahay maxaad rabtaa inaad samaysid saaxiib ba hay weydiin su'aalaha waalidka i weydiiyaan daahir iskama kaa daawan doono adiga oo burcadbadeedka ku sii biiraya waa ku mahadsan tahay sidaad iiga walaacsan tahay hadda waa inaan baxaa bay dirir horteeda ka dhaqaaq kama dhaqaaqayo shaqada ugu horraysa ee burcadbadeeddaadu waxay noqon kartaa qaladkii ugu dembeeyey ee aad ka geshid noloshaada waad dhiman kartaa daahir anigu ma walwalsani nolosheeda stress ha u gelin hal mar ayaan burcadbadeed noqday noloshaydii dhan ayay ku ciyaartay ma fududo daahir qaladkaygii wax ka bar walaalow dirir biliis walaalow horteeda ka leexo kaama leexanayo kaale iga dhex bax idhex mar kaalay iga dhaqaaq ma inaa ku dardaraa rabtaa warniba horteeda ka wareeg mase daahir rabtaa hadda waaya joofle ma adigaa qofkaasi saaxiib mirow ii waran saaxiibkayow waan fiicanahay saaxiib waxaan soo qaadayaa jaadka kan ugu fiican maanta qorshe ayay u muuqataa taas xaqiiqdii waan arkaa inaad xilli hore soo kacday si aad marfashka u timaadid saaxiib dhab ahaantii waan sii yara baxayaa hadhow aadtay ayaan isku dayaya inaan ku soo maro joofle laa ilaaha illah aamine ayaa madaxa kaaga fadhida adiga saaxiib iyada ayaa kuu meerisa sida aad u noolaan lahayd sida casharka oo kale saaxiib nin caaqila ayaa yidhi 6 erey guurku ku aflaxo waa haa qaali iyo adiga ayaa saxan qaali gacliso kuwaas ayaan hadda isticmaalaa waad ku saxan tahay saaxiib joofle arrinkaas aan is aragna saaxiib markaad shaqada ka soo baxday maanta waan isku dayi doonnaa jaadcunka habeenka waan ku daalaaniyo subaxii hore uma kici karo beeraley waxaa looga baahan yahay inay subax hore kacaan joofle beeraaley kuma fiicnid noo saaxiibkayga ma ku fiicnid shaqadaas ee aaminaha qabato hawsha beerta hay saaxiibow anigu waa daahsanaya waan sii cararaya joofle saaxiib markaad shaqada ka soo baxdo waa inaad marfashka nagu soo martaa oo aad jaad noo qaadid annaga oo dhan maanta si aan mushaarkaaga u barakaysanno hayadha saaxiib waa ku saxan tahay middaas maxaad samayn karaa la'aantiin saaxiib yaal haye saaxiib is aragti dambe oo xiise leh warniba horteeda ka wareeg war kaama hor tegayo kaaman hor leexanayo daahir nimankaan ku waalayo maxay kuu ballan qaadeen maxayse ku siinayaan waxba kaama gelin adigu maxaa kaa qusay taas ma $10,000 ma $20,000 maxay kuu ballan qaadeen $10,000 waa igu filan tahay oo yurub iyo ameerika ayaan ku tagaa si aan u dhabeeyo riyadeeda fanaannimo fankaygana aan ku horumariyo 10,000 kuma siin doonaan weligood daahirow inaad iska dhaafta ayaa kuu fiican nasiibkaa hadduu adigu xumaaday micnaheedu maahan in qof kasta nasiibkiisu xun yahay anigu waan ku rajo weynahay taas riyadeed weyn waa rajo weynaan ka qabaa lacagta badan waxaa hela madaxda burcadbadeedda daahirow haddii aadan dhiman lacagta aad heshaa kuuma gaari doonto inaad diyaarad ku fuushid taas ogow maskaxda gasho niyow aniga nasiibkaygaan tijaabana maxaad rabi laheed adigu horta inaan halkaan iska fadhiyo si moogu u ii garaaco mooge ha ka oggolaan daahirow inuu noloshaada ku ciyaaro waxaan ahay saaxiib qof dhallinyara oo daaqsan rajabeel ku ah hal mar aan burcadbadeedda galo ayaa taasi beddeli karta oo riyadeeda rumayn karta noloshaada waad beddeli kartaa daahirow adiga oo aan burcadbadeed noqon aniga hadday fiiri beer ayaan falanayaa waanan ku hanweynahay taas waa run haa waad ku faraxsantahay inaad beroley tahay anugu laakiin fanaannimadeeda ayaan ku faraxsanahay iga horleex alla maya mudanaha ayaa isoo wacay way iga tegi doonaan iga horleexo saaxib iga horleexo lagama yaabo meelna uma socotid meel ma aadaysid meeshaadaad joogaysaa meela aadaysa ma jirto daahir meeshaada joog
wallaahi maanta waa dhaartay dirir albaabka ayaad igu xirtay fur meelna aadi maysid hadalkayga maqal meel aa aadaysid ma jirto halkaaga ku jir dirir albaabka fur biliis waan dhaartay daaqadda ayaan ka boodi doonaa waan ogahay inaan hadda ka hor ka boodday hoos ayaan u degayaa oo dhagxaan waaweyn ayaan daaqadda hoosteeda dhigayaa wallaahi haddii aad soo boodid lugaha uun ka jibi mayside ilkuhuna way kaa daadanayaan war anigii waa boodayaa oo waxba igama gelin wixii jabay ha jabo haa soo bood oo noqo fannaan caana ah oo ilka aan lahayn nasiib wacan dirir soo noqo albaabka fur biliis ilaa aad ka miirsanaysid kaama furaya daahirow waan kaa tegayaa oo wakhti aad khaladkaaga aad uga fikirtid ayaan ku siinayaa war hadda ma nolosheeda iyo rayoonkayga ku ciyaaraysaa waaya dirir ma heshay daahir haa waan helay eebbe ayaa mahad leh xaggee joogaa inaan arko ayaan rabaaye gurigiisa ayaan korka uga soo xihay oo ma ku nabad qabaa xaggaas mooga dadkiisa ayaa raadinayee wax yar uun baan ka soo dhaqaaqay si aan kula socodsiiyey arrimaha oo ma xaqiijisay shakigaagii ahaa inuu burcadbadeed ku biiri rabay daahir haa wuu qirtay daahir wuxuu rabaa inuu lacag dalka uga baxo uu ka helo qofka walaalkay daahir waxaan oo dhan inuu sameeyo ku kalifay waa mooge wallaahi waa nasiib darro arrintan iigee walaal isaga carruurta aawen eeddadood ayay booqdeen ee inakeen caku waa mooge gadaal u laaba walaaley ma u laabanaya iga horgee aan isqariyo si aan baxar kuu gelin adiga dhuumasho ma jirto anigu orod kuma jiri karo mar walba walaalkay waa baxsad moogayuu ismooda isagu maxaa sidan laga wadaa budhcaadbaadeed yahown maxaad halkan ka qabanaysaa war inuu ii sheego ayuu halkan u yimid miyaanan kaaga digin in aadad la hadlin budhcadbadeedkan oo aad ka dheeraatid anigu qof weyn oo wax og ayaan ahay mooge ilmo maahi mala socotaa ma taasaa sababta aad budhcadbadeedka ula socotid si magaalada oo dhani u arkaan oo ay wax iga sheegaan miya oo wax ay dadku iga sheegayaan ayaad ka fakeraysaa uun ma og tahay adigu wax ay dadka kaa sheegayaan naag yahayn afka dheer sidaad iila hadlaysaa anigoo ninkaagaa cashir ayaa kuu dhigaya hortayda ka dhaqaaq budhcadbadeed yahon in aad garaacdid kaa yeeli maayo xaawakiin warkayga ma maqashaa waryaa waa xaaskaygii yaad ismoodday markaad iga celinayso xaaskaygii oon edebsanaya weeyaan iga hor dhaqaaq waryaa waa hooyada carruurtayda xushmee waryaa xaawakiin u sheeg ninkan waana inuu hortayda ka dhaqaaqo anigu mooge way iga kaa dhammaatay mar dambana isma daba socon doonno waad soo miyirsan doontaa waan miyir qabaa qaatiyaan ayaan kaa taaganahay dalqadayda ayaan kaa rabaa maxaa tidhi furriin ayaan rabaa way iga kaa dhammaatay marna ku dooni maayo mooge ma dhammaanayso oo wax dhammaanayaa ma jiraan ilaa aan anigu go'aansado go'aanka anaa iska leh adigaa warkaa lagu yidhaa dalqadayda isee hadda imaqashii dalqadayda lagama yaabo dhimashaan kaxiga wallahi inaan laga yaabin ku furi maayo waxaan filayaa inaad ku raaxaysatay xalqadani sidayda oo kale dirir daahir ayuu qol ku xidhay si uga hor istaago inuu ku biiro burcadbadeed maxay kula tahay go'aanka dirir daahir ayuu qol ku xidhay si uga hor istaago inuu ku biiro burcadbadeed maxay kula tahay go'aanka dirir fadlan nala wadaag fikirkaaga adoo si lacag la'aan ah fariin qoraal gaaban noogu soo dirayaa 354 ku bilow magacaaga iyo meesha aad joogtid waxaan jeclaan lahayn inaad fikirkaaga nala wadaagtid inta aan dib damba ugu kulmayno waa sidaas iyo nabadgelyo